Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada janaalkan Axmari Jufashiyaal waxaynu maqalnaa maalin walba wax cusub oo aan hore dunida u jirin ha noqoto aalado cusub oo la hindiso iyo waxyaabo nafci iyo dhib iskugu jira. Barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa waxyaabo fajacilayaab kugu ridi doono aana horey u maqal aan ku horeyne horey waad u maqashay applicationo badan iyo waxa loo isticmaalo balse applicationkan ku wada maanta waa mid ka duwan dhammaan kuwaasi balse intaan mawduuca hore u galin waxaan ka codsanaynaa daawada inaad videogan like saarto midasi dhiirigelin ayay inoo tahay mahadsanid. sidee dareemi lahayd haddaad awood u yeelato inaad hagto nolosha qof kale? Barnaamijkan cusub ee applicationka ayaa fursadaasi ku siinaya nin lagu magacaabo Brandon Wong oo qoro ah ayaa dhawaan ku adkaatay inuu go'aansado nooc cunto uu dalbanayo ayaa wuxuu taageerayaashiisa isticmaala barnaamijkan applicationka new ka codsaday inay dalab u sameeyaan oo noloshiisa hagaan, balse marka hore kuwa doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijkan cusub ee applicationka ayaa bixin doona $5 si ay u codeeyaan oo qofkaasi wax dalbanaya u hagaan, balse dadkii ugu badnaa ayaa kula taliyay inuu dalbado Kuuriya. Sidaas ayuu ku iibsaday cunadii asagoo markaa hadlaya arrinkaasi ayaa wuxuu yiri waxaan kala dooran waayay cunada Shiinaha iyo cunada Kuuriya, sidaas daraadeed waxaa go'aankaasi iga caawiyay taageerayaashiida ayuu yiri Mr. Wong oo ku nool magaalada Edmonton ee wadanka Canada. Waxaan markasta adeegsadaa barnaamijka applicationka ee new si aan u go'aansado dharkaan xiranayo maalintaasi iyo waxyaabo kale oo badan aan qabanayo. Waxaan ku soo biiray applicationkani bishii Maarso ilaa 4 jeer ayaan isbuucii isticmaalaa ku dhawaad 1700 oo qof ayaa ilaa hadda ka codeeyay ciwaankayga oo ugu xiran ayuu yiri. Barnaamijka applicationka new ayaa waxa asaasay ganacsato fadhigeedu yahay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Abkani ayaa weli si rasmi ah u shaqo galin. Court Smith gabar lagu magacaabo ayaa barnaamijkani ku tilmaamtay suuqa saamiyadaha aadanaha oo aad ka iibsato saamiyada nolosha dadka si aad u maamusho go'aanadooda una daawato natiijadooda. In badan oo naga mid ah ayaa waxa laga yaabaa inay la yaaban yihiin barnaamijkan applicationka, balse dhab ahaan way ka cabsi yartahay sida aad u malaynayso. Waxaa lagu talagalay applicationkan waxa ay ugu yeeraan qorayaasha, farshaxaniistayaasha, muusikiistayaasha, naqshadeeyaasha iyo wixii la mid ah, yacni dadka famouska ee caanka nooc walba ha noqdaan, actorska, ciyaaryahanada, fanaaniinta, dadyoga kale ee famouska ah ayaa isticmaala si dadka iyaga taageero ugu soo xirmaan. Barnaamijkani waxaa loo qaabeeyay applicationo hab si dhow ah ugu xirnaan karaan ama kala socon karaan taageerayaashooda. Dadkani caanka nooc walba ha noqdaan ama kuwa raacsan marka loo eego adeegyada kale ee baraha bulshada sida Instagramka, Facebooka iyo wixii la mid ah, iyo muhiimada ugu weyn oo ah inay lacag ka helaan isku xirkaasi applicationka dadka famouska ah. Mr. Wong oo ah qoraa ayaa sheegay inuu isticmaalay abkani new isagoo oo taageerayaashiisa ka dalbaday inay u codeeyaan mawduuca xiga ee uu wax ka qori karo marka kasta oo uu qofka dalbado. Barnaamijkani codeynta wuxuu helayaa lacag marka loo eego barnaamijyada kale ee sidaani u shaqeeya ayaa applicationkani new wuxuu kaga duwan yahay. Qof walba oo codeeya waa inuu lacag bixiyaa, marka waxaa la dhihi karaa waa ab noociisa aan weli la arag, balse applicationka new oo la hirgeliyay muddo 2 bilood ka hor ayaa kaliya waxaa hadda isticmaala dad gaaraya ilaa 100 qof oo caan ah. Barnaamijkani new wuxuu leeyahay 2 faa'iido ayay tiri Mr. Smith. $5 waxaa laga yaabaa inay tahay lacag yar, balse adiga oo waqti fiican taageerayaashaada la qaadanayo ayaad haddana lacag helaysaa. waa ab loogu talagalay in lacag laga sameeyo, siba qofka magaca leh ayuu u fiican yahay. Abkani ileen qofkani mawduuc ayuu keensanayaa iyo kala door ayuu leeyahay, labadaasi mid markaas ayay u kala doorayaan taageerayaashiisa, balse iyaga leh haddana lacag ka bixi taageerayaasha ilaa qofkii codeeyay. Dhibaatada waa inuu lacag bixiyaa, balse lacagtu waxay u dhici qofka soo yahay iyo kala doora labadaasi midkood. marka adigoo iska jiifa talo iyo lacag isku qaado soo ma ahan. Miss Smith waxay barnaamijkani ka shaqeynaysay 2 sano ee la soo dhaafay. Fikradani ayaa laga soo manguuriyay ab kale oo hore u samaysnay ka hor inta aysan ganacsato noqonin. Gabadhani waxay muddo 10 sano la shaqeynaysay fanaanka caanka ah ee u dhashay dalka Canada ee Drake, waxayna ka qayb ahayd kooxda maamulkiisa. labaduba ilaa hadda waa saaxiibo iskuul, waxayna sheegtay in Drake uu kala socday barnaamijkani abka new qabiir dhanka ganacsiga Stuart Duff oo qaybka shirkadda UK ee Brandon Gondola ayaa sheegay inuu abkani new u muuqdo madadaalo ayna tahay inuu abuurayo xiriiro gaar ah u dhexeeya shakhsiyaadka caanka iyo kuwa ku xiran iyaga. Afayeen u hadlay abkani new ayaa sheegay in shirkaddu ay xaq u leedahay inay gabi ahaanba meesha ka sarto oo ay mamnuucdo qof kasta iyo waxyaabaha uu la yimaado haddii ay ka hor yimaadaan tilmaamaha iyo shuruucda barnaamijkan ee applicationka ah ee ka baxsan
waxaa intaasi ku dartay badbaadada dadka ku jira abkani oo dhan ayaa muhiimada koowaad ah. Shirkaddu waxay dib u eegis u sameynaysaa dhammaan waxyaabaha lagu baahiyo iyada oo loo marayo sharciga saxda ah si aan loo baahinin wixii aan habbooneyn. Yacni iska gal oo iskaga fafalaad abkani maahan waa ab mar walba kor joogteen leh. Andre Patrick waa 34 jir ku nool magaalada Toronto, wuxuu isticmaalaa abkani New wuxuu sheegay inuu markii hore ugu soo biiray si uu ugu falceliyo muuqaal uu soo dhigay shakhsi uu aad u taageero. abkani New waa hab cusub oo qofka aad taageersan tahay ugu dhawaan kartid, wuxuuna muujinayaa dabeecadaha kale ee aadan qofkaasi ka ogeyn, ayuu yiri. abkani New ma noqon karaa waxa ugu weyn ee soo socda ee dhanka baraha bulshada la hadalhayn doono. Adigu daawaday ma laga yaabaa inaad ka mid noqoto dadka isticmaala abkani oo u codeyn doona qofka aad taageerto? Commentigana u reeb fikirkaaga. Mahadsanid. Barnaamijkan iyo barnaamijyo ka xiiso badan intaan ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.